runtii waa sida hore loo sheegay maalin taariikhi ah. maanta waxaa gabagabo noo ah shirkii saddexaad ee Dhuusamareeb oo aad og tihiin waqtigii uu soo bilowday oo ahaa 1 iyo 2 maantana aan 3 marayn. haddii aan wax yar gadaal u noqdo shirkii koobaad markii aan inta isugu imaanay oo Dhuusamareeb imaanay wax badan oo jirin yaan u nimid oo ay kow ka tahay inaan kulan lagu kulmo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka aysan kulmaynin yaan waxaan suurtagelinay ilaahay oo suurtageliyey inay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay isu yimaadaan Dhuusamareeb isugu yimaadaan kulmaan kana hadlaan marxaladda dalka oo ku jiro iyo meel ay wax marayaan iyo meesha hadda la joogo maadaama uu waqtigii hay'adihii dastuuriga ah uu gabagabo yahay meesha laga aadi lahaa. shirkii asaga ahaa si guul ah oo isfaham oo isu tanaasul ah oo isqancin ah oo soomaalinimo ku jirto ku dhammaaday. waxaan ku gabagabaynay oo ku dhammaaday in aan madaxdii dowladda ka codsanno inay ayagana shirkii labaad ee Dhuusamareeb nagala soo qayb galaan. guul labaad ay ahayd, madaxdii waa nagala soo qayb galeen. sidaasoo kale yaan si guud iyo si gaar ah iyo si gooni ah isu waraysanay oo aan uga hadalnay marxaladda dalka uu ku jiro oo u baahan wax qof gooni ah uu leeyahay aysan ahayd in la isqanciyo la wada hadlo danta guud oo Soomaalina laga shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta kale Soomaaliyeedna ay soo wada fiirinayso. runtii ayadana waad weydiideen oo Ilaahay baa na gaarsiiyey goobjoog baad u ahaydeen sidii quruxda badnayd oo tanaasulka lahayd yaan ku kala tagnay annaga oo faraxsan. shirkaas asaga ah waxaa lagu mudeeyey 15 Agoosto haddii Ilaahay yidhaaho in inta la isugu yimaado. dadka madaxda kale oo dhan markii laga reebo waxay qabeen 2 isbuuc ama 10 Agoosto. ninka 15 codsaday oo weliba ka badan in la gaarsiiyey rabay anuu waxa oo yidhi war noo dheereeya carrada aan ka noqonno shaqooyin badan aan noo yaallo maya ilaa ay shaqadan ka dhammaato 2 isbuuxa laga dhigo iyo 10 beri laga dhigo. ilaahay baa haddana mar labaad la gaarsiiyey 15 markii ay dhammaatay waa nimid aniga shakhsiyan waxaan ahaa ninkii ugu horreeyey oo Dhuusamareeb yimaaday 15. waxaan fiirinayay oonu imaaday hawl tiro badan iyo daruufo tiro badan iyo shaqo badan yaa ii taallay. wax walba oon qabay waxaa iiga muhiimsanaa ballantii ilaahay hortiisa aan inta ka qaaday inaan 15 inta ku soo noqda ujeedkeedana uu yahay midda guud oon dan gaara ahayn maslaxada ummadda Soomaaliyeed in looga hadlahay tii baan ilaalinayo. haddaan nimid nasiib daro madaxdii inta ku ballantay ma wada imaanin. ma eedaynayo waa u cudur daaraynaa. dadka isku aragti maaha, isku siyaasad maaha. ninna siduu wax u arkaa ninna siduu wax u arkaa laakiin gobol sideedaba wax walboo jiro waa galiyoon. gogol haddii la dhigo waa in la galaa oo la fariistaa daruuf kastoo jirtana looga 7 beri aan joognay walaalaha annagaan sugaynay sida uu sheegay madaxweyne Waare runtii dadaal tiro badan oo 100% mas-uuliyad ay huwan tahay yay sameeyeen shacabkii galmudug ugu horreeyay madaxweynaha. nin kastoo reer galmuduga wuxuu dhahayay samra dulqaata madaxda in ka maqan doona
hala keeno hala sugo hala raali geliyo annagana intaba raalli baan ka ahayn weliba waxaan diyaar u ahayn in la yidhaaho hala baxo hala aado intaba diyaar baan u ahay daruufaha suurtagelaan waay halkaas markay marayso annaga marka mas-uuliyad baana saaran mas-uuliyadda na saaran waxay tahay taanadii waa dhiman tahay oo waa taallaa oo waxaa nagala rabaa wixii intaas u socday inaan annaga taanadii aan nidhaahno wixii ay nala tahayna aan sheegno soomaali waxay naga sugaysayna aan sheegno waxaan ku qasbannahay marka waajibkiina saarna inaan gudano ujeeddada ay soomaali nin walba meeshuu joogo uu ku soo celcelinaya waxay tahay soomaali dhaqankeeda waxaa weeye 4 sano markay dhammaato in doorasho la galo annaga tiibaa cabir noo ahayd waxaa kaloo cabir noo ahaa oo mar walba lagu soo celcelinayo oo dee kulli waa iswadoognahay haddii qof iyo cod la yidhaaho madaxweyne farmaajo doorasho ma rabo waa extension oo la qurxinayo yaa xanta ay ahayd annaga waxaan go'aansanay oo ka shaqaynay oo aragtidaneenada ay tahay oo soomaaliya oo dhanna aan rabno inay ku qanacdo doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo maxay tahay doorashadii qof iyo codka ahay oo aanan aqoonin oo cirka ku shareernay waa laga soo degay horusocodkii iyo horumarkii dowladnimada soomaaliya oo ahayd maalinba in 2 tillaabo horle la qaadana ayadina waa ixtiraamnay oo in horumar laga sameeyo doorashada oo 16 la joogin 2020kiina farsamo cusub la keeno ayadina waa ixtiraamnay nin kastoo Soomaali ahna say wax ku suurtagelayso ayadina waa ixtiraamnay waxaan xeerinay oo ugu horeysay 2016kii doorasho dadbada ahayd tan maxaa la dhahayaa tan waxaa la yidhaahaa doorasho qof codna ma aha waa deegaan doorasho dad dantina waa ka baxnay deegaankaan nagina aadno doorasho loo aado waxaa kaloo guul ah meeshii la joogay oo kontonka kowgahay horeba looga socday dadka la soo dooranayo daruufo badan ku qadeen oo hayrahan waa lagula badiyey laakiin waa horsocodkay ka mid waxaa kaloo horumar ahoo taariikh ah oo loo baahnaa in deegaan kasto ay 4 goobood ugu yaraan ay ka dhacdo doorashadii aniga marka waxay ila muuqataa maanta doorashadii la rabay jidkeedii aan haynaa tuunkii jiray waa baxay extension baa la rabaa asoo qaawan baa la rabaa asoo magac kale loo bixiyo la qurxan baa la rabaa tii waa harta ninkii tan lagu arkaayay wixii tan loo bixin lahaa baan rabnaa marka tan waxay ila tahay mid Soomaali oo dhan anfacaysa weeye doorashadeedana shaqaynayso waxaan rabaa madaxdii naga maqnayd oo saaxiibadannada ahaa annaga ma eedaynayno daruufo jira dartooda waa u cudur daaraynaa walaalayaalow wixii ay nala ahayd markii aanu masuulno weynay waa samaynay oo aan aragtida dadka iyo deegaanadii iyo shacabkii iyo ummaddii aan mas-uulka ka ahayn fikradahoodaaan dhegaysanay meesha ugu dhoweyda oo ugu dhexdhexaadsaneed waa keennay waxaan codsanaynaa nin walboo Soomaaliya fikirkiisa taladiisa wanaaggiisa waa dhegaysanaynaa madaxda naga maqan ugu horeyso aan ka wada shaqeyno siday Soomaali u geli lahayd doorasho waqtigeedana ku dhacdo si ammaanna u dhacdo xor iyo xalaalna ah nin walboo Soomaali ahna uu ku qanco aan ka wada shaqeyno mas'uuliyadna wada saaran waay waajibka ugu horeeya uu gobolka taas waaye waxaan rabaa inaan madaxweynaha federaalka inuu uga mahad celiyo dulqaadka iyo tanaasulka iyo maxay ahayd sida fiicnayd oo aadka qiimaha badnayd oo fikradaha looga doodayay uu soo dhaweynayo wax walaalay wixii suurtagal ah shaqayn karo aan qaban oo madaxweynaha waa ku mahadsan yahay sidaas oo kale shacabka reer galmudug iyo dowladooda oo sida quruxda badan loo soo dhaweeyay
aad iyo aadna ugu faraxsanaa in meeshan wax qurux badan ka soo baxaan iyo madaxweynahooda oo dadaalka tirada badnaa aniga waxaan ku darayaa marka madaxweynaha galmudug wuxuu yidhi saaxiibkay ha la taageero anigu waxaan dhihi lahaa taallaha loo dhiso taageerada taallaha lagu daro nin dhallinyaro ah oo siyaasi ah oo nabadoon ah oo dulqaad leh oo nin kastoo soomaaliya ixtiraamayo oo rabo soomaali in la isku wado broseskan doorashada soomaaliya waxaa la yidhaahaa dhuusamareeb reer dhuusamareeb iyo reer galmudug sharafay u tahay maanta doorashada 2020 iyo 2021 cid la lahaanaysa male dhuusamareeb baa iskale galmudug waa iskale annagana waxaan kaga tegaynaa duco aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu